السلام عليكم ورحمة الله. دمان جنالك منير مرسي ku xiran waa saaxiibkii Munir soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wacyigelin taasoo ah ama wacyigelin ku saabsan cudurka coronavirus. Waxaa ogtihiin in dunida uu safmar ku marayo cudurka halista ah ee coronavirus. Haddaba maxaa la gudboon anaga maadaama muslimiin nahay waxaan rumaysanaynaa wax kasta oo Ilaahay xaggiisa ka yimaado in qadarta Ilaahay yihiin waan qaadanaynaa musiibooyinkana Ilaahay agtiisa ay ka yimaadaan. Marka waxaa loo baahan yahay in aan qaadano talooyinka dhakhaatiirta iyo qolada caafimaadka ayna siiyeen si aan markaa ugu yaraan aan digtoonaan ugu galno cudurkaas. Kulay waxaa la sheegay kiiskii ugu horeeyay Soomaaliya waxay ahaataba xaqiiqadeeda anaga waxaan laga rabaa mar walba inaan dadaalno oo ka hortagga aan ku dadaalno. Tusaale hadda waxay leeyihiin qolada caafimaadka mar walba gacmahaaga dhaq nadaafada ku dadaal, guriga joog, meelaha oo dadka badan isugu imaanayaan tagin sida iskuulada, suuqyada, masaajida. Walow hadda Soomaaliya aan laga sheegin cases kale ama kiisas kale oo aad u tiro badan, haddana mar walba waxaa fiican in aan qaadano talooyinkaas oo gacmahaas ka dhaqno, ujeedina aan taabanin, guriga aan joogno. maxaa yeelay taas waxay naga yareynaysaa in cudurkaas uu nagu dhaco kadibna dhibaato noo geysto. Anagu mar walba rumaysan in Ilaahay cudurka keenay asagana aan mar walba tala saarnayno. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad fahanteen ujeedada muuqaalkaygan. Waxaan rajeynayaa in Ilaahay uu naga badbaadiyo dambi dhaaf ugu dhigo qof walba oo cudurka uu ku dhaco Soomaali ama Muslim ah. insha Allah ma santihiin muuqaalka share gareey maxaa yeelay wacyigelin waaye. ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله.